maanta waxaan kaaga sheekayn doonaa khalqiga Allah subxaanahu wa ta'ala uu abuuray qofkii ugu sharafta badnaa, qofkii ugu maamuusta badnaa, qofkii ugu naxariista badnaa, qofkii ugu dulqaadka badnaa, qofkii ugu mudnaanta badnaa in lagu daydo oo laga dhigto role model. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. wuxuu soo maray xaalad walba oo qof bini aadan ah uu soo maro. wuxuu ahaa agoon, wuxuu ahaa rajay, waxaa ka geeriyooday awgiis, waxaa ka geeriyooday adeerkiis, waxaa laga ceyriyay dhulkiisii iyo magaaladiisii, waa la dhibay, waa la caayay, waa la dakhray. wuxuu soo maray faqri, wuxuu soo maray ghina. waxaan kaga dayanaynaa qaabka uu ula dhaqmi jiray caruurtiisa, qaabka uu ula dhaqmi jiray gabdhihiisa, qaabka uu ula dhaqmi jiray xaasaskiisa. waxaan kaga dayanaynaa naxariistiisa, waxaan kaga dayanaynaa sabirkiisa, waxaan kaga dayanaynaa qaabka uu ula dhaqmi jiray shaqaalihiisa, waxaan kaga dayanaynaa qaabka uu ula dhaqmi jiray cadowgiisa, waxaan kaga dayanaynaa qaabka uu ula dhaqmi jiray saxaabadiisa. Allah subxaanahu wa ta'ala wuxuu ka xushay caruurtii Nabi Ibrahim alayhi salaam Ismaaciil, wuxuu ka doortay caruurtii Nabi Ismaaciil Kanaana, wuxuu ka doortay caruurtii Kanaana Quraysh wuxuu ka doortay reer Bani Haashimna wuxuu ka doortay Nabi Muhammad alayhi salatu wassalaam. Allah subxaanahu wa ta'ala nasabka Nabi Muhammad kadib wuxuu ku doortay shakhsiyadiisa, wuxuu ku doortay runtiisa, wuxuu ku doortay amaanadiisa, wuxuu ku doortay dulqaadkiisa. inta aanan ka sheekayn dhalashada Nabi Muhammad alayhi salaam, waxaan rabaa inaan ka sheekeeyo laba dhacdo oo waaweyn oo ka horeeyay Nabiga alayhi salatu wassalaam dhalashadiisii. labadaas dhacdo waxay kala ahaayeen Abdul Muttalib oo ahaa awowgii Nabiga alayhi salatu wassalaam oo hogaamin jiray Quraysh ayaa waxa uu Maka ka helay ceelkii Zamzam oo la waayay oo aasnaa, kadibna wuxuu dib u soo celiyay biyihii Zamzam, isagoo laakiin ka baqaya in Quraysh ay kala wareegto biyaha Zamzam maadaama uu 3 caruur wax u bada ka haystay. ayuu Allah subxaanahu wa ta'ala wuxuu ka bariyay in uu siiyo 10 wiil. haddii 10 wiil uu siiyo wuxuu ku nadray inuu gowraci doono mid ka mid ah 10ka wiil. Allah subxaanahu wa ta'ala bariyadiisii waa uu ka aqbalay. Abdul Muttalib wuxuu siiyay 10 wiil. 10kii wiil markii ay waaweynaadeen ayuu Abdul Muttalib wuxuu go'aansaday nadarkiisii inuu oofiyo oo 10kiisa wiil mid ka mid ah uu gowraco. qorituur ayuu u sameeyay. qorituurkii ayaa waxa uu ku dhacay Abdullaahi ibn Abdul Muttalib oo ahaa nabiga aabihiis alayhi salatu wassalaam. Abdul Muttalib wuxuu soo kaxeeyay wiilkiisii Abdullaahi isagoo doonaya inuu gowraco si uu u oofiyo nadarkiisii. markaas carabtii Maka deganeyd iyo Quraysh ayaa waxay isku dayeen inay ka celiyaan oo way weydiiyeen, waxay ku yiraahdeen see u gowracaysaa wiilkaaga. markaas wuxuu ku yiri nadar baan galay, nadarkiina waxa waajiba inaan oofiyo, idinku xal kale hadii aad haystaan ii keen xalkaas. way soo kaxeeyeen, waxay u geeyeen naag faalisa ah. naagtii ayaa waxay siisay talo, waxay ku tiri waxaad keentaa 10 halaad, waxaadna keentaa Abdullaahi, kadibna 10ka halaad iyo Abdullaahi waxaad u samaysaa qorituur, midka qorigu uu ku soo baxo gowrac. 10kii halaad ayuu keenay, Abdullaahina wuu keenay, kadibna qorituurkii ayuu sameeyay. qorituurkii wuxuu ku soo baxay in Abdullaahi la gowraco. markaasay waxay ku tiri haddana waxaad ku dartaa 10 halaad oo kale, 20 halaad iyo Abdullaahi. markaasay qorituurkii wuxuu ku soo baxay Abdullaahi. markaasay waxay tiri 10 halaad oo kale haddana ku kordhi. markaasuu haddana wuxuu ku soo baxay Abdullaahi ilaa geelii uu gaaray 100 neef oo geela. 100 neef oo geela iyo Abdullaahi ayuu u sameeyay qorituurkii, kadibna qorituurkii wuxuu ku soo baxay 100kii neef oo geela ahaa oo Allah subxaanahu wa ta'ala madaxa Abdullaahi wuxuu ku furtay 100ka neef. Abdul Muttalib wuxuu gowracay 100kii neef, Abdullaahina sidii ayuu ku badbaaday. dhacdada labaad ee dhacday ayaa waxay tahay dhacdadii Marodiga. nin la yiraahdo Abraha al-Habashi oo haystay Yemen ayaa wuxuu arkay sida carabtu ay u weynayaan oo ay ugu xajiyaan sanad walba Kacbada. markaasuu Yemen wuxuu ka dhisay kaniisad aad u weyn oo dahab ka samaysan si uu carabta uga soo leexiyo Maka oo ugu soo leexiyo kaniisadaas inay u soo xajiyaan. nin carab ah oo acraabi oo reebaadiye ah ayaa intuu sheekadii maqlay buu habeen madow intuu kaniisadii yimid ayuu ku saxarooday.
abraha subaxii markii uu yimid oo loo sheegay in caraba ayaa kaniisadii ku saxarooday ayuu intuu xanaaqay ayuu wuxuu dhaar ku galay in uu soo dumin doono kacbada ciidan aad u xoog badan ayuu soo kaxaystay iyo muroodiyaal aad u fara badan ciidankii Yaman markii uu damcay inuu kala soo baxo ayay qabaa'il kamid ah qabaa'ilka Yaman daga ayaa waxay damceen inay ka celiyaan oo la dagaalamaan laakiinse waa ay ku guul daraysteen oo waa ay jabeen abraha soo socday ayuu wuxuu yimid Makka agagaarkeeda markii uu yimid ayuu saldhig samaystay kadibna wuxuu yiri hala iigu yeero ninka Quraysh madaxda u ah قريش مركز مدح وحا u ahaa Cabdulmudallib nabiga kaleey salaatu wasalaam awoogiis Cabdulmudallib markii uu u soo galay abraha ayuu kursigiisii intuu uga kacay ayuu dhulka la fariistay isagoo soo dhaweynaya oo siinaya qadarin markaas wuxuu ku yiri maxaad iga dalbanaysaa Cabdulmudallib wuxuu yiri waxaan ka dalbanayaa inaad siisid geeli aad iga qabsatay marka 200 oo halaad oo geela oo Cabdulmudallib uu lahaa ay ciidanka abraha ka qabteen oo haysteen abraha marka uu yaabay xanaaqay wuxuu yiri aniguna waxaan u socdaa inaan kacbadaada soo dumiyo adna waxaad igala hadlaysaa geelaagii Cabdulmudallib wuxuu yiri geela wuxuu yiri ana iska leh kacbadana ilaahay baa iska leh oo isaga ayaa ilaashan doona ee aniga geelisi ayuu soo siiyay geelisi Cabdulmudallib markuu soo kaxaystay ayuu Quraysh u yimid isagoo og inuusan la dagaalami karin oo san iska celin karin abraha iyo ciidankiisa ayuu Quraysh wuxuu amray in Makka ay ka baxaan si wax dhiba aysan u soo gaarin markii uu Quraysh ka saaray Makka ayuu kacbada intuu yimid ayuu wuxuu tiriyay gabay macnihiisu uu yahay ilaahayow anigu xoolahaygii soo dhacsaday adigu kacbadaada difaaco oo ilaasho abraha markii uu damcay dhinaca kacbada inuu u soo dhaqaaqo isaga iyo ciidankiisii iyo muroodiyaashiisii ayaa Allah subhanahu wa ta'ala wuxuu u soo diray shimbiro raxan ah oo aad u fara badan oo samadii oo dhan xiray oo shimbir walba ay wadato 3 dhagax hal dhagax waxay ku wadataa afkeeda 2 dhagaxna waxay ku wadataa labadeeda gacmood dhagaxaantaasi waa dhagaxaan holcaya oo dab ah shimbirihii ayaa ciidankii abraha markay dul yimaadeen waxay ku sii daayeen dhagaxaantii Allah subhanahu wa ta'ala ciidankii abraha halkaas ayuu ku halaagay oo waxay noqdeen mid meesha ku dhinta iyo mid la carara dhaawac isagoo googo'an abraha waxa la yiraahdaa isagoo faruhu ka googo'een ayuu meesha ka cararay kadibna wuxuu ku dhintay Yaman sanadkaas dhacdada maroodigu ay dhacday oo ku beegnayd taariikhda miilaadiga 570 ama 571 ayaa waxa dhashay Nabi Muhammad alayhi salaatu wassalaam